shirka golaha amniga qaranka ayaa galay maalintiisii saddexaad iyadoo la filayo in waqtiyada ay nagu soo aadan laga soo saaro warmutiyeed ay si wada jir ah u soo saaraan madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliyeed. shirkan ayaa diiradda lagu saarayay dhinaca ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan sidii ciidamada qaranka Soomaaliyeed ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka, isla markaana dib ugu guryo noqon lahaayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. sidoo kale shirkan ayaa la filayaa in warmutiyeedka ka soo baxa uu dhaxalgal u noqon doono bulshada Soomaaliyeed ee la daaladhacaya dalkii dowladlaaneed ee muddada soo jiray. dhinaca kale, dowladda uu hogaamiyaha u yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa sanad jirsatay iyadoo maanta ay ku beegan tahay 8 Febraayo oo ahayd maalintii la doortay madaxweynaha talada iminka haya ee Maxamed Cabdilaahi